nin wanaagsan oo u dhashay waddanka Sacuudiga ayaa noqday ninka qisadiisa aadka uga yaabisa maxkamadaha waddanka Sacuudiga. Waa kiis dhex maray laba nin oo walaalo ah. Ninkan magaciisa waa Xaysaan Al-Fahidi, waa nin oday ah oo da'weyn. Maxkamadda ayuu ka ooyay ilaa ilintiisa ay qoysay garkiisa. Haddaba maxaa ka oohiyey? Waxaa ka oohiyey guuldaro cajiib ah. Walaalkiis ka yar ayaa kaga guulaystay xanaanaynta hooyadood oo waayeel ah, taasoo xoolo dhan ka lahayd faraanti maar ah. Sababta keentay inay u tartamaan daryeelidda hooyadood ma ahayn inay doonayeen lacag, ee waxay ahayd baarinimo ay u falayaan. Waxay markii hore hooyadu la nooleed wiilkeeda weyn Xaysaan, balse markii ay da'da ka daba timid waxaa magaalo kale ka yimid wiilkeedii kale si uu u kaxeeyo, balse waxaa diiday Xaysaan, wuxuuna ku andacooday inuu weli awoodo xanaanaynta hooyadood. Isla qabsi dhex maray labada walaal waxay arrintooda gaartay maxkamad si ay u gardhigtaan, laakiin isku day walba qaadigu wuu awoodi waayay inuu xalliyo. Mid walbana waxa uu muujinayay inuu kan kale kaga xaq leeyahay xanaanaynta hooyadood. Ugu dambeyn wuxuu ka codsaday inay hooyadood u keenaan, balse uu ogaado midka ay jeceshahay inay la noolaato. Waa ay keeneen iyagoo garbaha ka sida. Qaadigii ayaa weydiiyey, wiilashaada keebaad jeceshahay? Si aqliyeysan waxay hooyadii ugu jawaabtay, kan waa ishayda, iyadoo gacanta ku taagta Xaysaan. Kanna waa ishayda, iyadoo gacanta ku taagta walaalkiis. Kadib qaadigu way ku adkaatay inuu xalliyo arrintan maadaama hooyadu jeceshahay labadoodaba. Kadib wuxuu xukumay in hooyadu la noolaato wiilka yar maadaama uu ka tabaroon yahay walaalkiis weyn. Arrintaas ayaana ka oohisay Xaysaan. Maxaa ka qaalisan ilinta Xaysaan, taasoo dhulka ugu qubatay maadaama uu waayay daryeelidii hooyadii kadib markuu noqday duq waayeel ah. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله أكبر. tartankan wuxuu ku muujinayaa in hooyadan ay wiilasheeda soo siisay tarbiyo wanaagsan markii ay yaraayeen. Kadib maxkamadda markay sidaa ku xukmisay, Xasaanna uu weli ilmeynayo, walaalkii ayaa ku kadiyey una soo bandhigay inuu isaga raaco si ay wadajir ugu noolaadaan inta noloshiisa ka dhiman. Hooyadii waa ay faraxday, Xasaanna waa uu farxay, maxaa yeelay hooyadii ayuu u adeegi doonaa inta uu awoodo, wuuna arki doonaa maalin walba. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. haddaba walaalayaal, muuqaallo cajiiba ayaad halkan ka heli kartaan. Sidoo kale qisadan cibro qaadashada leh sii sheer gareeya.